بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس وزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البر waxaa saaka uu sameeyay magacaabis wasiiro cusub ee xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Mudane Xamse Cabdi Barre markii uu arkay qodobka 97 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay qodobka 98 faqradiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay qodobka 100 xarfaha a ba iyo a ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay ra'iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnaha golaha wasiirada ee soo socda si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda. Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka. Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Cabdisalaan Dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Magacaabistani waxay dhaqan gashay saaka oo taariikhdu ay tahay 29 bisha Janaayo 2024 kadib markii uu saxiixay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre. Wabillahi tawfiiq.